Bismillah. Waxaa laga yaabaa marar badan inaad isweydiinayso maxay tahay macnaha nolosha amase why we are here, maxaa aniga meeshaan u joognaa, who we are, anagu maxay nahay. Waxaa rabaa maanta inaan ka hadlo qayb yar oo concept yar oo ku saabsan nolosha. As a human, life is the reflection of what we are. Inta badan noloshu waa reflection anaga gudaheena, sida gudaheena uu yahay ayuu banaankeena noqonaa inta badan. Mar walba marka intaad ku weerari lahayd external world, dunida banaanka ah wax ka dhacaya, mar walba waxaa isweydiisaa gudaheyga aniga maxaan ka qayb qaatay oo natiijadan ii sababay. Si guud humans anagu waxaynu leenahay conscious wax la yiraahdo. As a conscious waa awareness of internal and external world. In waxa hareeraha ka dhacaya aad ku baraarugtid ayaa la yiraahdaa consciousness. Conscious-ka 5 sense shanta dareensiday ee jirkaaga markaad wax walba aad experience gareysa as a conscious ayaad u experience gareynaysaa, sida aragga, maqalka, urinta, carafta iyo taabashada. Shanta dareensiday waa as a consciousness waa. Okay, conscious waxaa noqon karaa anything you experience of a pain ama struggle, xanuunka iyo problemka nolosha markii aad experience gareyn as a conscious u baahan tahay, sida madax xanuunka oo kale xitaa headache hadduu ku hayo, madax hadduu ku xanuunayo, without conscious xanuunka madaxaaga ma dareemi lahayn. That is conscious. Conscious-ka marka si guud hadda aniga as a human, we are not only physical, anagu jir kaliya ma nihin, waxaynu nahay astral, etheric, mental iyo physical ayaan nahay. Conscious-ka wuxuu isku xiraa dhammaan jaanibyadeyna oo dhan ayuu isku xiraa. Conscious waa incoherent, waa wax isku xiran. Xitaa conscious-ka hadda adi aad leedahay iyo conscious-ka aakhira markaad tagtid aad lahaanaysid waa same, waa wax isku xiran. Allah subxaanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku leeyahay fayunabbihum bimaa camiluu yawma alqiyaama. Wixii aad hadda sameynaysaan ayaa aakhiro laydinka wareysan doonaa, ayaad sheegi doontaa. Waxaa loola jeedaa waxay tahay conscious-ka never die, conscious-ka ma dhimanayo, but your body die, jirkaaga ayaa dhimanayo. Marka jirkaaga cells-ka, unugyada jirka marka nafsada ee qofka bini'aadamka ay ka soo baxayso, jirkiisa wuu experience gareynaya any pain. Saan sheegnay any pain saad ku experience gareyso, xitaa haddii midi lagugu mudo ama madax uu ku xanuunayo ama far ay ku xanuunayso ama ma garanaysaa goos xitaa hadduu ku xanuunayo, as a consciousness ayaad u experience gareynaysaa. Without conscious xanuunkaas dhan ma experience gareyn lahayn. So jirkaaga sakaraatul mawdka qofka markuu ku jiro as a conscious ayuu u experience gareynaa, laakiin qofka markii waxa dhimanayo waxa jirkiisa, laakiin conscious-ka marna ma dhimanayo. So conscious-ka markii aakhiro lagu tagtid, xitaa qofkii bini'aadamka markii la sii wado godka la sii geeyo, qofka ugu dambeeya ee ka soo baxa ma garanaysaa qabrigiisa ka soo tagayo wuu ogyahay. maxaa loola jeedaa? Conscious-kiisa uu joogaa, conscious-kiisa never die, ma dhimanayo. That's conscious. So conscious waxaa waaye awareness of oneself, waa in aad naftaada oneselfigaaga in adiga tahay inaad garato ayaa la yiraahdaa consciousness. So conscious-ka markii la joogo as a human waa two way, laba qaab way conscious-keena bini'aadamka. Conscious to the world, mid dunida aad ku aragtid, iyo conscious to ourselves, conscious anaga nafteena ku aadan, iyo conscious ku aadan dunida. Conscious to the world is self conscious alena. Animals waan ugu duwanaa. Animals conscious waa leeyihiin, laakiin one way conscious ay leeyihiin. Tusaale, xayawaanka markii miraayad la hor dhigo wuxuu arki karaa, wuxuu u maleeyaa ma garanaysaa miraayadda wajiga miraayadda ku soo suurma inuu xayawaan kale yahay ayuu moodaa, inuu asaga yahay ma ismoodo. Tusaale xitaa haddii mukulaal aad miraayad hor dhigtid, markay mukulaasha miraayadda fiiriso mukulaal kale inay meesha joogtay moodaa.
ma ismoodo inay ayada reflectionkeeda inuu yahay sawirkaas ma ogi laakiinse iyada marka waxay leedahay conscious to the wall ay leedahay marka la joogo animals conscious sheeg way leeyihiin laakiin conscious to the wall ay leeyihiin but humans conscious to the wall waa leenahay conscious to ourselves waa leenahay wax walba nafteena ku saabsan waan garanaynaa conscious to ourselves wuxuu higher noqdaa markii biological mechanism-keena markii jirkaaga waxa ka dhacaya internalkaaga ee wax ka qaldamaan tusaale qofka ma garanaysaa in laga soo bujinayo oo kale ma garanaysaa si qofka markii ma garanaysaa any problem oo experience keenayo oo naftiisa ku saabsan self conscious uu leeyahay marka qofka markii anything oo asaga selfies ku saabsan uu experience karaa but laakiinse animalska maya sidoo kale anaga waxaan leenahay awood problem markuu gaaro aan heelin ku sameyn karno laakiin animalska hadii ma garanaysaa problem uu gaaro jirkooda meel uu ka go'o ama se ma garanaysaa dhaawac xun uu gaaro ma isdhay karaan that's why marka ay waxay leeyihiin conscious to the wall ay leeyihiin but as a human we have conscious to ourselves and conscious to the wall ay leenahay that conscious marka waa wax human self conscious ka anaga aan leenahay waa humanka ayuu ku kaliya nothing creator kale oo leh ma jiro makhluuq kale oo self conscious leh oo aan human ahayn ma jiro self conscious waa waxa dunida u yeelay reality dunidan inaad si real u aragto self conscious ayaa sababay only self conscious is real anything else kale waa illusion xitaa maskaxdaada human brain galbeedku waxay yiraahdaan hallucinate the reality maskaxda bini'aadanka detach from the reality mar hore ayay ka goosatay reality macquul ma in bini'aadanku uu arko reality asay markuu adeegsanayo brainkiis maskaxdiisa inuu adeegsanayo laakiin conscious ka saan sheegnay synthesis qaar waxay yiraahdaan conscious wuxuu ku jiraa ma garanaysaa maskaxda bini'aadanka qaybta frontierka macnaha qaybtan oo frontiga ah laakiinse conscious-ka brain kaliya ma brain-kan waa maskax bini'aadanka uu leeyahay laakiin conscious-ka saan sheegnay waa wax infinite waa wax isku oo maalan yahay sidoo kale waa wax incoherent oo isku xiran oo ma garanaysaa jaanibyadaada oo dhan isku soo xiraya oo ku sababaya aan jaanib kasta adi aan leedahay inaad experience karayso xitaa qofkii bini'aadanka markii uu jiifo uu hurdayo waxaa dhacdo waxa la yiraahdo astral brain ama se out of body experience astral projection ama se out of body experience qofkeena markuu seexdo habeenkii jirkiisa iyo ruuxdiisa way kala baxdaa wuxuu soo experience gareynaa meel uusan jirkiisa joogin jirkiisa sariirta ayuu saaran yahay laakiin asaga wuxuu soo experience gareynayaa meel uusan jirkiisa joogin ruuxdiisa meel tagayso meel iftiin badan meel ma garanaysaa asaga ma garanaysaa uu ku riyoonayo riyadaas xitaa inaad experience gareyso waxaa sababaya conscious-kaaga ayaa sababaya self awareness-na waa jiraa self awareness waa in waxaad ka dhacaya hareeraha iyo naftaadaba aad ku baraarugtaa conscious-kana wuxuu ballaarinaa self awareness-kaaga conscious-kana wuxuu ballaarinaa self awareness-kaaga aleeda ayuu ballaarinaa so waxaad marka conscious-ka inta badan waa waxa isku xiraya adiga jaanibyadaada oo dhan inaad experience karayso riyada mentalkaaga physical body-gaaga ma garanaysaa anything oo adiga jaanibyadaada ku saabsan all waxay isugu soo aruurayaan consciousness-kaaga so okay cholera soo galay meesha ka sii wadaya human brain hallucinate reality google-ka xitaa gali kartaa youtube ka baari kartaa maskaxda bini'aadanka detach from the reality maskaxda bini'aadanka reality ma arki karto it's impossible to see reality ase we have brain so saan sheegnay conscious waa to the world iyo self conscious aliya anything adiga selfiga aan ku saabsanayn oo to the world ku saabsanaa si funny baa moodaa anything waxa kula muuqanaa funny wax walba waxaa jecesha illusion ma garanaysaa but yourself kama aaminsanid inay illusion tahay wax walba kale illusion ka aaminsan tahay waa wax aanan oo ma garanaysaa maalayacnad ka aaminsan tahay but qofkii bini'aadanka self asagu uu leeyahay maalayacni kama aaminsanin his self conscious wuxuu isku haystaa real inay tahay that is marka waxa reality-ga asaga inuu abuurto u sababayso waxa ah
self conscious ayaa so sidaa darteed self conscious kaaga waa waxa sababaya reality so waa conscious waxaa noqon kara feelings kaaga perceptionka maxaa perception mas ayaad aragtoo kale mas weyn ayaad jidka ku aragtay perception ayaad sii aaminsantaa oo ah maskaas ha isku taaban train ayaa wuxuu ku socdaa waddo railway ah oo ordaya perception ayaad leedahay sababtaa wax naftaada waxaad ka aaminsantahay in aadan trainkaas aadan isku hordhigin macnaha qofka fiyo aan ka wadaa self conscious kale si lamida ma garanaysaa self consciouska waxaa ah libaax ayaa kaasoo horbaxay waa meel dheer ayaad kortay adoona protection wadan ha kasoo boodin waa ma garanaysaa perception ayaad sii aaminsantahay so anything else kale waa illusion but your self conscious waa real reality waxa create the reality waxa realityga in uu in wax shay aad real u aragtid waxa sababa waa self conscious anybody markii naftiisa laga reebo illusion buu moodaa wax macna yacni buu moodaa laakiin self conscious selfigiis asaga real ayuu moodaa reality ayuu moodaa so universe as a universe aan kasoo bilaabno universe-gan galbeedka waxay yiraahdaan death of a star markii xidiga uu dhacayo uu dhimanayo iyo death of cell markii unuga uu dhalanayo waa isku shape si lamida gacantaada xididada gacantaada iyo biriqda dhacaysa biriq markay dhacayso waa isku qaab ma garanaysaa universe-gan ishaada qaabkii u samaysan tahay waxaa laga soo dhexeli karaa ma garanaysaa universe-gan qaab ishaada oo kale u samaysan so annagii marka scientists-yaasha qaar waxay yiraahdaan we are the waxaan nahay internal universe gudaheena waa internal universe you know this is external universe anaga aan arki karno oon experience karaynin waa external universe but we have internal universe also so si marka qofkii ibni aadanka ah Allah subhanahu wa ta'ala universe-gan iyo wax uu abuuro oo dhan maala yacni muusan abuurin wax maala yacni ah uu abuur malaha aadam ka horna makhluuqaad way jireen balse makhluuqaadkaas way sidii jireen kow midba midku ka awood badaya kow ayuu ka sii jiray nolosha oo dhan iyo universe-ga oo dhan waxaa laga aaminsanaa maala yacni ayagana self conscious malaha sidaa darteed waxaa la abuuray ma garanaysaa ibni aadanka iyo aadam balse waxaa loo yeelay self conscious ayaa loo yeelay oo ah universe-gan iyo universe kale oo asaga internal gudihiisa ah asagoo macnaha qaabka u samaysan yahay ah inay ma garanaysaa reflection ay isku yihiin so xayawaanada kale iyo makhluuqaadka kale ma garan karaan macnaha nolosha ay leedahay amase wax walba oo universe-gan yaala qiimaha ay leeyihiin sababtoo ayaga self conscious-kooda ma laha balse humans waxay leeyihiin self conscious-kaas wuxuu sababaa inay reality nolosha ay u arkaan reality-gaas sidee ugu arki kartaa marka nolosha inay reality tahay waa markii adiga self conscious-kaaga ay aad ka soo dhex aragtid tusaale qofkeena ma garanayo universe-gan ma garanaysaa caafimaadka iyo ma garanaysaa qofka markuu caafimaad leeyahay until jirkiisa asaga gudihiisa oo caafimaad daro ka dareemo si lamida qofkeena taajirnimada iyo lacagta ma garanaysaa haddii si fiican loo isticmaalayo ee qiimo leedahay ma garanayo ilaa asaga faqri iyo dhibaato uu la soo kulmo so scientists qaar waxay yiraahdaan qofka ugu caqliga badan dunida intelligence-ga ma ahan only the one who read qofka wax akhriyo buugta akhriyo kaliya ma aha qofka caqliga leh qofka experience-ga leh ayaa ah qofka caqliga leh experience wuxuu ka yimaadaa only self conscious oo ka yimaadaa hadda dad wax akhrisid wax aqbal laakiin adin tijaabo sameyn aysan wax ka qaldamin aysan ma garanaysaa wax you know waxyaabo badan aadan isku dayin ya experience waxaa la yiraahdaa markii wax adiga aad rabtid aad weysid wax adiga aad helaysid ayaa waxaa la yiraahdaa experience that's experience one uncomfortable situation waa waxyaabaha adiga aadan rabin aadan jeclaysanayn si ma garanaysaa filashawaa ah ku dhacaya ma garanaysaa that's experience taas waa wax ku sabab experience so experience waa what you get when you don't get what you want wax adiga aad rabin
markii wax adiga aad rabto markaa weysid wax adiga aad helaysid waxa la yiraahdaa experience. So self conscious-ka humaniska uu ku keliyahay ayaa waxa la rabaa inay ka soo dhex eegaan universe-gan macnaha uu leeyahay. Universe-gan macnaha uu leeyahay ma ogaan kartid ilaa adiga self conscious-kaaga aad wax ka weysid. marka self conscious-kaaga aad wax ka weysid ama self conscious-kaaga problem u dareemo ama self conscious-kaaga markaas musiibo ay ku dhacdo baad noloshan qiimaha leedahay markaas aad ogaanaysaa. inta ka horeysa wax adiga naftaada intay ma garanaysaa ay tahay comfortable ama se ay tahay comfort zone ay ku jirto noloshan illusion ay kula muuqanay sababtoo ah brain markaas leedahay brain-kana saa sheegnay nolosha illusion ay u aragtaa maskaxdaada aad leedahay nolosha reality inaad aragta laga yaabo. So reality waxa ku abuuraya kaliya waa your self conscious kaaga waa wax adiga selfigaaga ku saabsan ayaa reality ku abuuraya. That's waxa sababa inaad reality aragto. hadda tusaale dameer farow kale ayaad aragtay dameer farow ku soo ordaya yaxaas ma garanaysaa oo webi ma garanaysaa saan u dul saaran inta wuxuu saaran yahay 4 saan 4 waxaad arkaysaa dameer farow ku ordaya 8 yaxaas dhaxdooda ayuu ku ordaya dameer farow waa 500 wuu ordaya saa sheegnay animals waxay leeyihiin conscious to the world ay leeyihiin self conscious ma so way ordayaan saasay ku ordayaan وعليك أديك مركز فيرتو حاسة ليه هاي تمر فروق عني هو محاك خلدنا وتصالح معنا محو ماشان كلام حق مروي لكن سوى أركز إنه بيقرب إنه حق جد مركز غير because of أساق مالها self conscious مالها تصالح مركز حلاقيها بقى إن مت كم أي قبطان تمر فروق وحياة بدنا يكون بيا كوا لقبنا يا كوا مركز لقبته حال حب مركز لقبته حال كسحب تصالح هذا لبلو قال يجوي لبلو مركز لوجو تصالح هو بتبادي مركز هو بتبادو أساق اسمه ويدينايو كمنا والولايو نيو محامش أو صامرتي محا سو إنت ماشان صامرت ماشان إنت صامرت ما هين ما كرنيس وحياس من مكول ولا صوت أساق سيلف كونشس ملا عسى هيومنس مصيبة لم يضح عدي أي هيومنس كقول عدو أدب والولاية والول ماشان محا سببي صوت بحولية هاي سيلف كونشس أساق وجارة يوليه أو أنا كرييتر أم أنا مخلوقات كلا أي سنة الحين أيو أساق ليه تحسنا وواحد la rabo in uu ka soo experience karo internal wall-kiisa si uu ogaado qiimaha external wall-ka qiimaha external wall-ka makhluuqaad kale oo garan kara ma jiro adigana si kale oo ku garan kartaa qiimaha external wall-ka ma jiro ilaa adiga naftaada wax ku saabsan ay uncomfortable ama si miss ama aweysid maahane si kale aad ku experience kartaa ma jirto home guriga qiimaha uu leeyahay iyo ma garanaysaa inaad guri leedahay waxa ogaa kara qofka homeless-ka qofka aan guri lahayn qiimaha caruurta ilaa waxa ogaa kara qofka caruur la'aanta hayso waalidka qiimaha ilaa waxa ogaan kara qofka waalid la'aan soo koray agoonka ah ma garanaysaa soo marka waa in aad adiga selfigaaga dareenka selfiga aad u qabto inaad feeling ka haysato the only thing marka real awareness waa self conscious ka only your self conscious create the reality nothing else oo reality ku abuuraa ma jiro even brain-kaaga maskaxda waxa loogu talagalay in hallucinate reality isn't arkin detach from the reality مرة بقى إن illusion يكون ولا تمسكها so human brain live in their illusion so illusion كاس أقول نوشة their self conscious أيا وحو سمينا يا create the reality that's it thank you so much